Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada Somali News oo aad kala socotaan wax waliba oo cusub. Maantana waxaynu ka hadli doonaa ama qaada dhigi doonaa xaaladda dalka Itoobiya oo ah runtii geeska Afrika mise nabadda geeska Afrika iyo waliba gobolkaba. Haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wararka ugu dambeeyay. Wararkii naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal aad iyo aad looga hoobtay ay galabta casriyeedii ka dhaceen gobolka Tigreega. Wararkan xaqiijin iyo sawirada aynu soo qaadan doona ayaynu waxaynu ku muujin doonaa awoodda labada ciidan ay isbidayaan. Xog hoose oo ay heshay Somali News ayaa waxa ay ku waramaysaa in awoodda Tigreega aysan ahayn mid loo barbar dhigi karo ama loo babacdhigi karo maadaama awood xooggan ay isbidayaan. Gawaarida gaashaman, kuwa qoryaha iyo waliba kuwa darandooriga u dhaco, gantaalada loo yaqaan BM-ka oo ay Soomaalida caan ku tahay ama ay aad iyo aad u garan og tahay, iyo waliba baasuukaha ayay ku rareeyeen ciidamada Tigreega, kuwaas oo awood aan innaba caadi ahayn kala kulmay dowladdii uu hogaaminayay Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa soo afjari waayay dagaalada kadib markii aad iyo aad uu ugu hoobtay ciidamadiina ilaa iyo hadda uu ku daabulayo gobolkaas. Hase yeeshee uu awood loo babacdhigi karo uu leeyahay kuwa Tigreega. Tigreega ayaa dowlad ahaa in ka badan qarni maadaama uu geeriyooday hogaamiyahoodii aadka ugu tiiraa ee Malla Zenawi, kaas oo la aaminsan yahay inuu hubka iyo waliba gantaalada ay ku dagaalamayaan uu farta ka saaray. Abiy Ahmed ayaa la sheegay in qoyskiisa uu u raray meel ka baxsan caasimadda ama waliba gobolka kadib markii uu ka cabsi qabay in la soo weeraro qoyskiisa. Beesha caalamka ayaa hadda soo faragelisay taas oo doonaysa inay arrinta la dejiyo. Hase yeeshee Abiy Ahmed ayaa ku adkaysay in uu soo afjari doono, taasi oo aan muuqanin awoodda Tigreegana aysan ahayn mid ay u babacdhigi karto dowladda. Gobolkan ayaa waxa uu doonayay inuu ka go'o intiisa kale ee Itoobiya maadaama xukunkii lagala wareegay mise laga fara muuqsaday. Abiy Ahmed uu diiday inuu qabto doorasho, taasna ay ku sababeeyeen in uusan ahayn mid sharci ku jooga dalka. Haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe noo saar si ay kuu soo gaaraan wararka ugu dambeeyay.